dhammaan shacabka dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya meel kasta ay ku nool yihiin ama ay ku sugan yihiin dal iyo dibadba waxaan inooga tacsiinaynaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya dadkii Soomaalida ahaa ee labada bisha Maskaram 2010 taariikhda dalkeena Itoobiya lagu xasuuqay magaalada Awoodeen iyaga oo waxba aan galabsanin guryahoodiina lagala soo baxay kaliya loo dilay in ay Soomaali yihiin waxa si degdeg ah u tagay goobtii lagu xasuuqay dadkaas ciidamada qaranka iyo federal booliska oo si muwaadinimo ku dheehan tahay u badbaadiyay 300 oo qof oo iyagana la rabay in sidaas si kalmida loo xasuuqo 300 oo kale si nabadgeliya ayaa loo soo badbaadiyay hadda ku sugan yihiin xukuumadda dawladda Itoobiya inkastoo dadka la xasuuqay ay lagu xasuuqay meel ay goobjoog ka hayeen maamulada bariga Harargee